السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارته سو دhowaad maalinku waa axad waa 19 Oktoobar 2025 ka barnaamijkeenan maanta insha Allah taala waxaan ku qaadaa dhigi doonaa dawladda dalka Mareykanka oo soo rogtay ganaax lacageed oo ay dul saarayso dadka haysta green card-ka oo guryaha uga soo taga green card-kooda aan ku bilaabay Ruben Antonio Cruz oo ah 60 jir haysta deganaansho rasmi ah ama green card oo ku sugan magaalada Chicago ayaa toddobaadkii hore lagu ganaaxay $130 kadib markii saraakiil ka tirsan waaxda socdaalka iyo kastamka Mareykanka ee ICE ay ogaadeen in uusan wadan aqoonsigiisa. Waxa ay ahayd kormeer caadi ah oo aan ku dhamaan xabsi balse muujinaya in dawladda federaalka dib u soo celisay hirgelinta sharci muddo dheer aan la dhaqan gelin. Sida lagu sheegay warbixin ay baahisay NBC Chicago. Muddo 10 sano ah qodob yar oo ka mid ah shuruucda federaalka ayaa waajibinayay in dadka aan ahayn muwaadiniinta Mareykanka oo aan dhalashada ka haysan ee qaangaarka ah ay mar walba wataan caddayn diiwaangelintooda. Shuruucdan oo muddo dheer aan la fulin ayaa hadda dib loo soo celiyay iyadoo maamulka Trump uu faray hay'adaha dawladda in ay si rasmi ah u fuliyaan shuruucda socdaalka iyo soo galootiga. dawladda hoose ee amniga qaranka DHS ama Department of Homeland Security ayaa iyadu bilowday inay ciqaabto dadka haysta deganaanshaha joogtada ah green card-ka ee aan mar walba wadan kaararkooda. Waa arrin si rasmi ah looga doonayo qofka haysta green card-ka xagga sharciga federaalka balse aan la xoojin muddo dheer. Tallaabadan ayaa dhalisay su'aalo ku saabsan dhinacyada sharciga iyo dastuurka oo ay ku jiraan in la isweydiiyo intee in la eg bay dawladda u geli kartaa kormeerka dukumentiyada iyo waxa ay tani uga dhigan tahay malaayiinta qof ee dalka Mareykanka ku haysta deganaanshaha rasmiga ah ama green card-ka. Waxaa hadda la xusuusinayaa in ay u hoggaansamaan sharciga socdaalka oo ay jeebka dambe ku qaataan shuruucdooda. Haddii aad rabto in aadan wax dhibaato ah kala kulmin ciidamada ICE. Waxa ay ahayd kormeer caadi ah oo aan ku dhamaan xabsi balse muujinaya in dawladda federaalka dib u soo celisay hirgelinta sharci muddo dheer aan la dhaqan gelin. Sida lagu sheegay warbixin ay baahisay NBC Chicago. Muddo 10 sano ah qodob yar oo ka mid ah shuruucda federaalka ayaa waajibinayay in dadka aan ahayn muwaadiniinta Mareykanka oo aan dhalashada ka haysan ee qaangaarka ah ay mar walba wataan caddayn diiwaangelintooda. Shuruucdan oo muddo dheer aan la fulin ayaa hadda dib loo soo celiyay iyadoo maamulka Trump uu faray hay'adaha dawladda in ay si rasmi ah u fuliyaan shuruucda socdaalka iyo soo galootiga. dawladda hoose ee amniga qaranka DHS ama Department of Homeland Security ayaa iyadu bilowday inay ciqaabto dadka haysta deganaanshaha joogtada ah green card-ka ee aan mar walba wadan kaararkooda. Waa arrin si rasmi ah looga doonayo qofka haysta green card-ka xagga sharciga federaalka balse aan la xoojin muddo dheer. Tallaabadan ayaa dhalisay su'aalo ku saabsan dhinacyada sharciga iyo dastuurka oo ay ku jiraan in la isweydiiyo intee in la eg bay dawladda u geli kartaa kormeerka dukumentiyada iyo waxa ay tani uga dhigan tahay malaayiinta qof ee dalka Mareykanka ku haysta deganaanshaha rasmiga ah ama green card-ka. Waxaa hadda la xusuusinayaa in ay u hoggaansamaan sharciga socdaalka oo ay jeebka dambe ku qaataan shuruucdooda. Haddii aad rabto in aadan wax dhibaato ah kala kulmin ciidamada ICE. haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel haddaa hore noola joogtay like and share the video waa idinka mahadcelinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.